وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين. وبعد إخواني وأحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. midiyada waxaan kaga jawaabayaa su'aal shalay la weydiiyay oo ku saabsanayd Quraysh ma waxay wateen 200 oo faras mise 100 faras bay wateen. Quraysh 200 oo faras ayay wateen sidaynu inagu musaabaqadan aynu ku qabanay, waana sidii aan ku xifdiyay 34 sanadood ka hor. وفعلا كتابك أنت بدن أنه أخرنه الرحيق المختوم قري إنه بقول فرسي هاي لما بصوا صاري وقت قاسي أنه كحفتني سداسي لما بقول فرس سدا وحرنتي أيدي الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وحرنتي أيدي لا بقول فرس محمود الصلابي والسيرة النبوية رنتي قري، waxa ayday بحث من العلماء إن كبدن بقول عالم كتاب الله يقانه الرياض النادرة في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كبدن علماء دكاتري أي قرآن، وإن كبدن طبعا أي إسكوه تجن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفعلا أي مبدن باقبته إن بقول أي هاي، لكن إنه سداسي أي نور دقنه. waxaanu ka hadli doonaa maanta ghasawaadkiiba si googoos ah intooda waaweyn aynu uga hadli doonaa. Ghaswatu Uhud waxaanu ka soo baxnay dagaalkii Badr oo Nabigu calayhi salaatu wassalaam uu ku guuleystay isagoo watay 312 saxaabi, isla markaa 14 saxaabi ay ka istishhaadeen. 7 Quraysh kamida lagu dilay dagaalkaasi, 7 kamidana la qabtay. isla markaasi Quraysh guri kamida oo guryaheeda kamida oo aan qof laga dilin muhiimi aanu jirin. walidaalka waxa weeye waxay ku noqotay reer Maka oo runtii Quraysh ay waqtigaasi deganaayeen arrin aad iyo aad u adag ayay ku noqotay qadiyadaasi. walidaalka waxay aad iyo aad u jeclaayeen in la helo dagaal kale oo ay la galaan muslimiinta oo cala laqal ay ku soo ceshadaan haybadoodii amaba ay khasaaro ku gaarsiiyaan nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wassalaam. markii waxay go'aan ku qaadatay hantidii aynu ka soo sheekaynay ee kunka awr ahayd ee wax walba ay saarnaayeen inaan la taaban. sidaa runtii waxa go'aamiyey hoggaankii sare ee waqtiga u haray oo uu ka mid ahaa ninka loo yaqaan Abu Sufyaan bin Harb, oo ka mid ahaa ninka loo yaqaan Safwan bin Umayya, oo ka mid ahaa ninka loo yaqaan Ikrama bin Abi Jahl, oo ka mid ahaa Khalid bin Walid bin Mughira. وفعلا nin doorkoodii ayaa waxay go'aansadeen in hantidaasi meel la dhigo oo lagula dagaal galo rasuulka calayhi salaatu wassalaam. siday u dhammaystirnayd ayaa meel la dhigay. waxaa runtii intaa u helisay in la yidhi qof walba wixii uu ku soo kordhin karo si aynu dagaal rogaal celina u samayno ha la sameeyo. وفعلا sidaasay sameeyeen. waxaa kaloo ay la hadleen qabaa'ilkii ay xiriirka badan lahaayeen runtii yani qabaa'ilul axaabiish oo kale. waadi baa jiray, waadi al-Xabash la odhan jiray oo Maka agmari jiray oo qabaa'il badani ay dhinac deganaayeen. qabaa'ilkaas oo dhanna waa ay runtii la hadleen. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka hadlay arrintaasi Quraysh ay go'aansatay. waxaanu yidhi ina aladiina kafaruu ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كوي قالوا بي مال كودا أيي بحنيان سي أي أوغو جدك إلهي سبحانه وتعالى ويبحن دونا باي لهيدي dabeeto waxa ay korkooda ku noqon doontaa murugo
waana laga guulaysan doonaa baa ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratul anfaal waxaa ilaahay qur-aanka ugu xusay markii ay ku heshiiyeen lacagta in meel la dhigo weliba wax badan oo kalena lagu daro waxaa xusid mudan safwan bin umaya ayaa ninka loo yaqaano abaa cisata ashaacir oo ficlan waa dadkii beder lagu qabtay nin gabayaayo buu ahaa dadka suugaanta iyo gabayadu qiimo weyn bay ku lahaayeen mujtamacii carbeed laanna waxaa aad iyo aad loo eegi jiray afka carbeed ee asalka ah walidaalika baa ilaahay qur-aanka ummad waliba waxa ay jeceshahay baa ilaahay ku soo dejin jiray wax cagsi geliya sidaa darteed baa qur-aanka loogu soo dejiyey halka nebiyullaahi muuse calayhi salaam iyo nebiyullaahi ciise calayhi salaam wakhtigaasi wakhtiyadoodii suxarada ama kuwa sixirka ayaa awood lahaa markaasaa ilaahay mucjisaad sixirkii ka yaabgeliya alla ku keenay ninka loo yaqaano abaa cisata ashaacir wa ficlan waa dadkii la qabtay dagaalkii beder rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama uu ka mid yahay acyaantii ummadda dadka suugaanta lihi waxay ka mid yihiin acyaanta ummadda wakhti walba waa dadka la hadla ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adiga waan ku sii daayey ilaahay dartii baan kuu sii daynay laakiin heshiiskiinu waxa weeye inaanad dagaal la gelin muslimiinta isla markaa aanad collaysan haddaanad islaamayn danahaaga qabso laa ikraaha fi ddiin qad tabayana arushdu min alghay islaamku waa diinta keliya ee xorta ah ee qofka aan lagu qasbin inuu islaamo laa ikraaha fi ddiin qofka diintaa loo bandhigaa waxaa la leeyahay diintaada iska hayso laakiin islaamku dhakada ha kaa xukumo halka maanta milyaaraad lacag aan la tiro lahayn bay ku bixiyaan dowladaha christianity-ga ee maanta dunida hogaamiya in muslimiinta diintooda laga saaro oo dadka mubashiriinta ah haddaynu mar ka warramano diinta christianity-ga fidiya iyo lacagta lagu bixiyo iyo kiniisadaha waxaa ka shaqeeya iyo inta hay-adood ee united nationska hoos yimaadee haddana ka shaqeeya christianity-gu laa cadada walaa xasr rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu odhan ninkaasi islaam oo qasab ku islaam wuxuu yidhi xor baa tahay nin gabayaayaa tahay waanu ku sii daynay laakiin colaadii nagama dhaxaysa heshiiskaasay kala saxeexday ninka loo yaqaano safwan bin umaya oo ficlan aabihii baa la dilay walaalkiina waa la dilay sidii aynu dagaalkii badar kaga warrannay maalqabeennadii quraysheed iyo hoggaankoodiina wuu ka mid ahaa kolkii aabihii dhintay isagaa meeshii soo galay lacag badan buu ugu ballanqaaday waxaanu yidhi waa nin aad gabayga ugu wanaagsan buu ahaa ballankeennu waxa weeye inaad qabaa'ilka oo dhan kiciso si loola dagaalamo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ficlan ninkaasi wuxuu rasuulku ka yeelo axdaasta dambe isagoo muslimiinta gacanta uu soo galay xagga dambaynu ugu tegi doonaa waxaa ka mid ahaa dadka ay doorteen ninka loo yaqaano musaafix binu cabdi munaaf aljumaxi oo isaguna ka mid ahaa dadkii shucarada ee wakhtigaa jiray oo ficlan waxa weeye ista'jaruu cid wal oo ay is odhan karaan dagaalka way abaabuli karaanba way soo kiraysteen abaa sufyaan binu xarb oo markaa ka hadhay odayaashii dhammaantood waa ti beder lagu dilay inta maanta nool isaga ayaa hoggaankeeda ah awal wuxuu ahaa odayga shanaad laakiin afartii ka waaweynaaba waxay ku dhinteen dagaalkii beder walidaalika waxa weeye maanta isaga ayaa simaamka hayay marka abu sufyaan binu xarb dagaaladii hore ee muslimiintu ay galeen baa wax badan looga tirinayay taa darteed waxa uu runtii qaatay colaad culus isla markaa waxa uu qabay hinda bintu cutba bintu rubayc hinda bintu cutba bintu rubayca oo cutba binu rubayca waa tii la dilay oo adeerkeed baa la dilay walaalkeedna waa lagu degay dagaalkii beder hinda waxay ahayd runtii xaaskiisii oo colaadda kale ee isagana uu hayay ee gaarka ahayd waxayd gurigiisiibaa dab ka oognaa oo insha allahu tacaala xagga dambe ayaa hindo colaadeedii iyo xamsa binu cabdilmudallab iyo wixii la midka ahaa aynu ka sheegi doono quraysh wax allaaliyo waxay isula hadheen ma ay jirto 3,000 oo dagaalyahan oo allahuma salli calaa sayidina muxamedin xula ayaa ay soo diyaariyeen oo ay ku jiraan
dadkii ay isbahaysiga wada lahaayeen ee qabaa'ilka axaabishta loo odhan jiray ay ka mid tahay waxyaalaha runtii la yaabka lahaa waxaa ka mid ahaa may dhici jirin qurayshi inay dumarka haysato laakiin dagaalka uxud 15 dumara oo xula oo dumarka runtii u talin jiray quraysh amaba ka soo jeeday guryaha culculus ama aftahanimo lagu yaqaanay si ay u taxriidiyaan ragga ayaa insha Allah taala ay ku darsadeen idan waxa la leeyahay waxay wateen 200 oo faras 700 oo runtii diric ayaa ka mid ahaa waxyaalihii runtii ay wateen macnaheedu waxa weeye wuxuu ahaa ciidan dhammaystiran oo aad iyo aad u xoog badan ayaa u ahaa waxaa ka mid ahaa hoggaanka guud oo loo dhiibay Abu Sufyaan bin Harb ciidanka fardaha waxaa hogaaminayay Khalid bin Walid bin Mughira waxaana u ahaa secretary ama magaratay ku xigeen u ahaa Ikrima bin Abi Jahl calanka waxa loo dhiibay bani Abd ad-Dar oo ficlan Maxamed bin Abdullah bin Abd al-Muttalib bin Hashim bin Qusay يعني odayga shanaad bay bani Abd ad-Dar ay iskugu yiman jireen rasuulka kaleey salaatu wasalaam وفعلا علنك iyaga quraysh u qaadi jiray reer bani Abd ad-Dar qof kamida ayaa loo dhiibay qurayshi iyadoo sidaa u diyaara ayay u baxeen xaqii rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo Madiina haddaynu in yar ka warano sahankii rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo qaabkii loo ogaanayay wararkii cadawgii rasuulka kaleey salaatu wasalaam ee quraysheed Abbas bin Abd al-Muttalib oo aynu sheegnay fi Badr dadkii la soo qasbay inuu ka mid ahaa isla markaa hoosta islaamnimada ka qarsanayay oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam hoosta kaga xidhna ayaa qoraal aad iyo aad u ballaaran u diyaariyay rasuulka kaleey salaatu wasalaam Maka iyo Madiina 500 oo kiiloomitir bay isu jiraan walidaalika waxa weeye qoraal ballaaran markii uu diyaariyay ayaa uu nin u dhiibay wuxuu yidhi ha taabanin waxaad u geysaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam gacanta ka geli quraysh inta ay tahay waxay soo diyaarisay qaabka ay ugu tala galeen in dagaalka ula galaan rasuulka kaleey salaatu wasalaam marka nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa masjid Quba isaga oo jooga ayaa loo geeyay dabeetana Ubay bin Ka'ab oo runtii rasuulka kaleey salaatu wasalaam xafaadii saxaabada kamid ahaa isla markaa saxaabadii waxna qori jirtay waxna akhriyi jirtay kamid ahaa ayuu dhiibay rasuulka kaleey salaatu wasalaam markuu u sheegay rasuulku waxna muu akhriyi jirin waxna muu qori jirin taasina waxay ahayd xikmad ilaahay subhanahu wa ta'ala uga jeed laana quraanku mu'jiz buu ahaa أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى بكرة وأصيلة بل يدو إلهي وكردقي مد أن وحنا قرين وحنا أخرين رسولك عليه الصلاة والسلام أيا هدنا وحي لهدين أساطير الأولين اكتتبها وبينه هوري إلا أخري شري أو أصو قرقري أو أصو الملوقي فهي تملى إليه بكرة وأصيلة قال نوري قال دنبال لو يري يبيد هدين هذا إيجو إن رسولك وحب قرين عليه الصلاة والسلام ما حد مالين ساهدوا رسولك وحنا قري لها وحنا أخري لها وقرآن كأيكو أرك لها ولذلك حكمة إلهي بيهاي المهم أبي بن كعب أي أخري رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك مركا وحيري عدنا هوشيء وحيالله المسلمين تكوجو ليستين وحكمدها أي كوجو ليسن شرين استعينوا على قضايا حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة حسود أرميه نوحى لك شتان سر ويقف ولو نعمة لسي حاسد بدنه لي ولذلك وحوية محاما أنت وضبط المسلمين تايست وحالله لي وحا مسلمين تمان توطى لنا ورك ما أنت كسب حالك أوغضن بيسا إسرائيل باهيسا أما دي أمريكان كأي نمكا دوني دا هيستا iyaga ayaa dhaatadooda oo dhan imaka subhanallah waxa la yaabay berigii Ciraaq sidee yani nuclearkii Ciraaq loo garaacay yani su'aashaas la isweydiiyay Saudi Arabia runtii ficlan diyaaradaha AWACS ka sheegi kara distance aynaan garan karayn marka yani bariga dhaxo oo dhan ay wax ka soo dhaqaaqaan ayaa yaalay marka wax la maxay u ogaan waayeen يعني ما قرأت اللهم صل على سيدنا محمد
diyaaradii Sacuudiga ee hantida inta leeg lagu bixiyay waxa loo ogaaday nimanka hogaaminaya dhaatada u hayaabay inay yihiin niman runtii Mareykan iyo nimanka dunida maanta haysta almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yiri Ubay ibn Ka'ab warkaas yaanu ka bixin ilaa inta aynu la tashanayno hogaanka guud ee saxaabada ee arintaas ay khusayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam markiiba waxa uu qabtay shir degdega oo la iskugu yeedhay saxaabada ridwaanullaahi calayhim shirkaasi runtii waxa uu ahaa Quraysh soo diyaar garowday hantida inta leeg diyaarisay sidee looga hortagay ayaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam u sameeyay oo ficlan shirkaasi waxa ka dhashay Madiinaynu ka galnaa difaac oo nimankaasi ilaa waxa weeye qof walba hubkiisii buu haystaaye iyaga ku jabi doonay dadkii oo dhan halka ay degan yihiin ee qof walba caruurtiisa iyo dumarkiisa iyo maalkiisa uu ku dagaalamayo mise Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin toos baynu dagaalka u galnaayo nimanka banaanka inuu ugu baxna ayaa la isweydiiyay وفعلا رسولك عليه الصلاة والسلام سيد الروايات كقاركود أي شيء جيان وحوش على إن مدينة لتشوجو وهي الرسول كور رياضي عليه الصلاة والسلام إن كستور الرؤية ذا سي وقت جيدا عن له بين رسولك عليه الصلاة والسلام وحكور رياضي إسقى لجورع أيه نافي يعني لقى أي رسولك كور رياضي عليه الصلاة والسلام سيفتي سي وكنت قال لمي وداوع سو قاري أي كوري ودي رسولك عليه الصلاة والسلام إسقى النبي عليه الصلاة والسلام بفيس أدق علي أي كوري ودي رسولك عليه الصلاة والسلام مركا الرؤية دي مركي وفسري وحو قادي نيفكا لقورع الله دي إني تهي صحابة دي سواناكسن إيهو قانكا قيب كمدا إني استشهادية إسلام مركاسي سيفتي سا داوع وسو قاري رسولك وحا وكفصل عليه الصلاة والسلام أهل بيت كيس خاصك أن قيم الله إنه كردم عليه وحا كلاو كسور إنه مال دفيسو ونكسن قليه مديني إنه النبت قليني سر رسولك عليه الصلاة والسلام ولذلك وحوي هل كاو حكم وقتي رسولك إنه ليه هي ورلين لو ما وقلين إنه بحناه إنه هل كاسي كده قالن لكن المسلمين تمركي للرجوي waxay go'aan ku qaateen runtii in dagaalkaasi la galo oo ficlan dadkii aad ugu ololeynayay waxa kamid ahaa Abdullah bin Ubay bin Salul aymada muslimiintii waxa leeyahay ninkaasi nin munaafiq u ahaa munaafiqnimadiisa cadaystay kamay ahayn laakiin wuxuu islahaa dagaal galin laano Madiina dadka ku badan banaan marka la iskugu baxo ninkii dagaalamay ninkii aan dagaalamayn wala arkaya marka wuxuu islahaa Madiina ha ku qarisa ayay culimadu yiraahdeen وفعلا وحبو جعلا إن مدينة لغو تقالب وتقال كاسي آنو كقيب قلي المهم صحابة دي كقيب قلي ويدي تقال كي بدر إلا تقال كي بدر رسولك عليه الصلاة والسلام وحير قف كي دونو وعينو إسرعنو كي دونو إسكتشوك سفر بانو تدقوية وقلينا إياقو كوي هانتدا مسلمين تدعي مكتشوكي مركا اختياري بيحي ولذلك صحابة دي كدب دعضي وأبالك إلهي غير بدر فعلا وين أقنها حاتب بن أبي بلتع صحابي قاسي ما أنت أسرت في دي إنه من أهل بدر وغير بدر إسكدا يقول رسولك عليه الصلاة والسلام مركا غير بدر القرآن كإن بدن با إلهي كتل مامي مركا صحابة دي كدب لعضي أيا وحي آذو شعلاين إن دقال لقاله سي أي يقولنا أبالك بدر أوكلي أي أهلان المهم سيدا صار رنتي لوبتي وحكمدها صحابتي تحريد كودي حمزة بن عبد المطلب إن كستو كل شيء حمزة رضي الله عنه صحابتي بدر كقيب كشيء هذا نوحو هادتك شعلاء إن دقال كديب لو قالو أو لقو قالو ميل المدينة كبحسن رسولك عليه الصلاة والسلام صحابتي آديات أيا رنتي وتحريدي إلى أحد رنتي إلى هذا الصلاة دي جمعة أيو لسوق رسولك عليه الصلاة والسلام وحوكواني إن رنتي جهادكو فضلك أولي هاي رنتي هذه الصبره إن أبال وين لهليو أيو النبي عليه الصلاة والسلام وقور حمل مر الله لي بركي صلاة دي جمعة لقى بحي أي رسولك عليه الصلاة والسلام قرقي سو تجي وحاو صودي أرسدي سيفتي سي
waxa kale oo soo diyaarsaday laba diric markii hore diric uu rasuulku isticmaali jiray laakiin laba ayuu iska dul xidhay waa qalabkii waqtigaasi seefta iyo waranka iyo leebka celin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu soo baxay ayaa saxaabadii ay yidhaahdeen yaa rasuul allah malaha sacad binu mucaadiya ay ku yidhaahdeen waanu ku dariiqnay nebi allo miyaad haddaad doonayso inaynu madiine ku dagaalgalno kula diyaar bannahay markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa yanbaqii linabiyin idaa labisa la'matahu wahiya dircu an yadacaha xataa yaxkuma allahu baynahu wa bayna caduwih nebiyada ka midii hadduu dagaal u diyaargaroobo diriciisana uu soo xidho qalabkiisa uu dhammaystirto uma ay habboona inuu dib u noqdo ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga iyo cadowgiisa uu kala saaray ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan rasuulku waxa uu muujinayay haddii uu jihaad u diyaargaroobo inaan dib loo noqonin rasuulku 3 qaybood 3 guuto katiibad markaa waxa aynu odhan karno ayuu u qaybiyay ciidankiisa muhaajiriinta يعني قوتدودا waxaa hogaaminayay Mus'ab bin Umayr al-Abdari waa saxaabigii aynu ka sheekeynay dagaalkii Badr ee walaalkii markii la soo qabtay aynu tilmaanay wixii uu ka yiri guutana waxaa hogaaminayay ansaarta kamida Usayd bin Hadir guutada runtii Khasraj waxaa hogaaminayay Habaab ibn al-Mundhir maadaama ansaartu ay muslimiinta u badayeen iyaga laba guuta ayuu ka dhigay rasuulku kaleey salaatu wassalaam oo labadii qabiilay ugu waaweynaa ee Aws iyo Khasraj ayaa uu kala siiyay rasuulku kaleey salaatu wassalaam kun يعني waxa weeye mujaahid oo saxaabada kamida ayuu rasuulku kaleey salaatu wassalaam isu keenay 100 diric ay siteen konton faras ay saxaabadu wateen riwaayadka qaar kood baa le faras ba may wadan riwaayadka qaar koodna waxay leeyahay faras kaliya wateen laakiin runtii marka aad eegto dagaalkii Uhud iyo sida loo diyaar garoobay waxay u badan tahay saxaabadu inay farda wateen maadaama dagaalkii Badr ba laba faras ay wateen المهم يعني خلافك سيرده يعني ميلها قاركود و يعني اشتباك اسدحقل با كجيرو معتبر بدن ما aynu sii siinayno muhiimadii waxa weey waa qadiyada aynu uga jeedno nabigu kaleey salaatu wasalaam Abdullah ibn Maktum buu kaga tagay inuu dadka sii tukiyo iyada laftigeedu waa mucjiso weey oo maalintii horena waynu xusnay islaamku sidoo u daryeeli jiray dadka mucaawiqiinta yani qofka indhaha la ama dhagaha la inuu hoggaanka sare saxaabada ku jiray oo culimadii saxaabada ay kamid ahaayeen oo rag la tilmaamo qiimo la ay kamid ahaayeen Madiino oo dhan ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam markii labaad ayuu kaga tagay Abdullah ibn Maktum wuxuu magaaladii adiga ayaa sii tukanayay buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam saxaabadu runtii sidaas ay u baxeen waxa la yiraahdaa markii ay waxooga socdeen ayaa waxa la tusay ciidan badan oo runtii nimankii yahuuda ka mid ah marka rasuulku kaleey salaatu wasalaam ba katiibad يعني كوح aad u hubaysan nimankaasi maxay yihiin ya rasuul waa nimankii yahuuda qayb kamida oo doonayay inay inala dagaal galaan marka nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu hal aslamu miyay islaameen oo ay yihiin dad muslimiina faqalu la dabata nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri anigu adeegsan maayo dad qaalay inay dagaalka ila galaan buu yiri rasuulku kaleey salaatu wasalaam halkooda hay iska joogan buu wa ficlan iyada laftigeedu وادكتين مانت عراق محاكا داعي سبحان الله يا ويا عراق وباسكري لقالو تطبيل 10 مليون مسلمين إن كبدل أفر بقولي ستيتن نوكلير فيزيكس كبرتاي ساينتيستسكي مسلمين تبارك دحه وجوا وين النوكلير كوسمين لها مسلمين توردن إسرائيل باكل يسي عراق 1 by 1 نبى هوس بالو ديلتش إلا ودك جبيجي سوى القصة فوضى مهمة جبيجي سوى واحد إن علم قال بابيه وحقا يرود فرقتير سو وضمضة شارك أو بحثي مويا وحنا رنتي السبب تيدا لها ضلال بدن المسلمين أيام مركي العراق لقلي شخص وحوي نكاسيانو أودي سنين سلطته دينا إلى شدان درتيد أي وحي باسكريين حتى علومدي أي كوكسبين وإلى قرطان إن قال الله استعمال كرمرك قاركود marka ay Saddam Hussein oo kala u soo baxo
maantana waynu arkaynaa wixii ka dhacay almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war kooxdaasi yahuudda ah anigu adeegsan maayo buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama aanay islaamin haynaga joogaan buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii baa uu ku baxay markii uu waxoogaa socday ayaa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kala xulay ciidankiisii markaa waxaa la yidhi cabdillaahi binu cumar binu khadaab rasuulku wuu reebay calayhi salaatu wasalaam da'yaraantiisa awgeed usaama binu sayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu reebay da'yaraanta awgeed usayd binu dahayr isagana wuu reebay zayd binu saabit wuu reebay zayd binu arqam wuu seebay caraabata binu aws wuu reebay camar binu xasam wuu reebay abu saciidan alkhudari waa uu reebay zayd binu xaarisa alansaari wuu reebay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sacad binu xabba wuu reebay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka dadkii yaryaraa maanta kuwan gaalada yidhaahdaan carruurta in dagaalka loo isticmaalay in la dhibo maaha jihaadkii ay iyagu naftooda ugu soo baxeen ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama yacni da'doodii ay yar tahay ayuu ka reebay rasuulku calayhi salaatu jihaadkii jannada lagu helay